waxaan xusi laba arrimood oo intii uu maqnaa dalka ka dhacay. ta koobaad waxaa jiray nin Somaliland ah oo ka mid ah madaxxaqameedka Somaliland oo si gabasho la'aan u sheegtay inuu ciidamada qaranka u soo raacay cadowgii Somaliland waxyeeleynaya ee ay daafacayeen. madaxweynaha waxaan kula talinayaa u soo jeedinayaa inuu ummadda reer Somaliland la wadaago oo u caddeeyo mowqifka isaga oo madaxweynaha qaranka uu arrintaa ka taagan yahay. waa laga sugayaa madaxweyne. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasallim. haddii eebba idmo berrito waxaynu u dabaaldegaynaa 35 guuradii aynu la soo noqonnay xorriyadeennii luntay 1 Juulaay 1960. 35 sannadood ma yara, laakiin waxaynu ka mid nahaynu maanta ilaahay uga mahadnaqaynaa cadowgana loo sheegayaa Somaliland inay Somaliland 35 sannadood iyadu wixii dowladnimo lahayd oo dhan ay gudatay. cid ugu manna sheeganaysa talo iyo xoolo iyo arrin midnabana aanay jirin. dowlado badan oo la ictiraafsan yahayna maanta intay Somaliland haysato qaabka dowladnimadu ma haystaan. qaar badan oo la ictiraafsan yahay ma hadda waxaa iskale Somaliland oo dhan meel kasta ay joogaan, guda iyo dibad, ku yar iyo ku weyn, sheekh iyo shariif, dumar iyo rag. waa mahad ilaahay. maanta waxay ku soo beegantay 35 guuradu iyadoo adduunka oo ka socdo dagaal aad u culus oo adduunyada oo dhan saameeyey oo dagaalka bariga dhexe. dagaalka bariga dhexe oo iminka muddo 2 sano ah socday marka laga soo bilaabo markii loo xoog sheegtay Falastiinta aad loo xasuuqay iyo ilaa maanta oo la isku hortaagan yahay Iiraan iyo wad jiri may sida waxaan doonayeen iyo waan jirayaa waxba ka aqbalay ma ay taagan tahay. waa muddo 2 sano ku dhow ama ka badan. dagaalkaasi dadka uu saameynayo waxaanu ka mid nahay dowladaha ugu nugul. wuxuu saameeyaa siyaasadda, wuxuu saameeyay dhaqaalaha, wuxuu saameeyay nabadgelyada dalka gudihiisa iyo hareerihiisaba. markaa waxaynu ka mid nahay dalalka aan lahayn awoodo dhaqaale iyo siyaasad aad loo tixgeliyo markay dowladuhu isugu faanayaan xoogooda dhaqaale oo ka koobaada, ka siyaasadeed oo ka labaada iyo ka ciidanba. marka geeska Afrika isu muruq dhiganayo waxaynu ka mid noqonaynaa kuwa laga muruq badan yahay laakiin tala wanaagsan haya. dagaalkaas saameyntiisu waa badantay. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu dagaalka dhibaatadiisa dhaafiyo. markuu dagaalku dhammaadana inaynu guul ka helo mooya aan wax khasaare ah iyadoo baabira ay nagu yeelan. intaa kadib madaxweynuhu muddo dheer ayuu maqnaa. hawlo badan oo qaranka u muhiima oo kama kacdihiina waxay sugayeen go'aankiisa oo ah mas'uuliyadda saaran madaxweynaha. hawlaha badan ee qaranka halkan ku geli maayo wuu u joogaa. waxaanse isaga ku odhan lahaa madaxweynaha inta aanad mar labaad noqon hawlaha waaweyn ee go'aankaaga ku xidhan ee kama kacdada ah wax ka qabo, go'aan ka gaadh. waxaan xusi laba arrimood oo intii uu maqnaa dalka ka dhacay. ta koobaad waxaa jiray nin Somaliland ah oo ka mid ah madaxxaqameedka Somaliland oo si gabasho la'aan u sheegtay
inuu ciidamada qaranka u soo raacay cadowgii Soomaaliland waxyeeleynaya ee ay daafacayeen wuxuu si cad oo dhiiran u faahfaahiyey qaybtii laxaadka lahayd ee uu ka qaatay dhibaatadii Soomaaliland loo geystay ee dhinac walba lahayd naf iyo maal iyo siyaasad iyo wixii la mid ah inuu qaybta ugu weyn ku lahaana si bareeda ayuu u qirtay ninka odaygii wuxuu ku faanay oo uu ku manna sheegtay inuu madaxweynaha maanta jooga isagu saaray oo gaarsiiyey kursiga madaxweynenimada wuxuu sii raaciyey inuu mar labaadna gaarsiin doono sababtoo ah inay iminka yihiin saaxiibo siyaasadeed oo aada isugu dhow berita waxay noqonba mooyaane madaxweynaha waxaan kula talinayaa u soo jeedinayaa inuu ummadda reer Somaliland la wadaago oo u caddeeyo mowqifka isaga oo madaxweynaha qaranka uu arrintaa ka taagan yahay waa laga sugayaa madaxweyne waayo waxa ku xiran qaranka halkaad ka taagto arrintaa saameynteedu ku yeelanaya marka caddayntaada waa la sugaya sababta aan u weydiinayaana waxaa weeye Soomaalidu waxay tidhaahdaa afkaaga oo ku daafici waayey alla gooba la yidhaah arrintaasi madaxweynaha ayay u taallaa waana laga sugaya waxaan raacinayaa shalay iyo doraad arrimihii oo taceer gaab ay ku saabsanayd ciidamada oo inaan hore u arag iyana waxaan ku talin lahaa in dawladdu dadaal badan iyo juhdi badan ku bixiso in la helo xal raandhiis leh oo arrimahaasi inaanay inagu soo noqnoqonin inaga xakameeya waayo waa arrimo xidhxumadooda leh hadday kuwaas inagu furmaan ka igu dambeeya shicbiga dawladba ha loo yeesho foojignaan iyo is-ilaalin tabaha faraha badan ee cadowga Somaliland in inagu waxyeelayn karo dibad iyo gudaba mar labaad hambaliyo dhammaan Somaliland sanad gudaha 5 ilaahay idankiisa inagoo bashooshii barwaaqo oo intan ka hormarsanna hayna gaarsiiyo sanadkaas sanadkiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.